xogayaha ku-meelgaarka ee xisbiga mucaaradka wadani Khadar Xuseen Cabdi oo maanta qaybo kamid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in ka xisbi ahaan ay magacaabeen guddi soo baadha heshiiska saddex geesoodka ay kala saxdeen Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World isagoo sheegay in ay guddigaasi ka koobnaan doonto xildhibaano, garyaqaano iyo aqoon-yahano. waxa aan doonaynaa inaan halkan kaga dhawaaqo guddi uu gudoomiyuhu magacaabay oo ah guddi sharci oo ka shaqeyn doonta, eegi doonta, daraasayn doonta, xog dheeraada raadin doonta oo ku saabsan arrimaha dastuurka ee la jabiyay marka loo eegayo heshiiskan. waa guddi isugu jirta khubaro iyo garyaqaano xisbiga ka tirsan iyo xildhibaano. guddidaasi waxa kale eegi doontaa dadka aan xilalka haynin ee dalka khaladaadka ka galay marka heshiiskan laga hadlayo arrimahan dariiqa loo mari karo ee saxda ah ee sharciga ah ee maxkamad loo geyn karo ay talana ka keeni doonaan oo ay xubnaha baarlamaanka ee xisbiga iyo sidoo kale maxaan ku raahday xisbiga guud ahaantiiba ay talo uga keeni karaan. xubnahaasi la magacaabay waxa kamid ah garyaqaan xildhibaan Xuseen Axmed Caydiid, waxa kale oo kamid ah garyaqaan xildhibaan Maxamed Saalax Cige iyo garyaqaan Barkhad Jaamac Xirsi. waxa kale oo la shaqeyn doona khabiir ajnabi ah oo ku takhasusay cilmiga maxaan ku raahday international law-ga, qawaaniinta caalamiga maadaama arrimahani ay wax badan cilaaqo la leeyihiin maxaan ku raahday qawaaniinta caalamiga. Khadar Xuseen Cabdi xogayaha ku-meelgaarka ee xisbiga mucaaradka wadani waxa uu sidoo kale ka digay khataro uu sheegay inay ka iman karaan saldhigga militari ee xukuumadda Somaliland ka siisay magaalada Berbera dalka isku taga Imaaraadka Carabta. waxaynu ku noolnahay gobol khilaafaad fara badan ay ka jiraan. waxaynu bixinay saldhig military wax yar Berbera u jirta Yemen oo run ahaantii ay maxaan ku raahday ay ka iman karto khataro military ama ciidan. xukuumaddu arrintaasi maxaa uga meel yaala, maxay ka diyaarsatay heshiis military markaad galayso waynu ognahay wadankeenu tamarteena military aynu leenahay waynu naqaanaa, si fiican baynu u naqaanaa. maxaan ku raahday wadan air defense system ma lihin, hab difaac cireed wadan leh ma lihin, wadan hab u gantaalo meel kale kaga yimaada iskaga qabta leh ma lihin. marka khilaafaadka gobolka ka jira ee maxaan ku raahdaa ciidan marka aynu sidaa u dhex galayno waxa kale oo la shaqeyn doona khabiir ajnabi ah oo ku takhasusay cilmiga maxaan ku raahday international law-ga, qawaaniinta caalamiga maadaama arrimahani ay wax badan cilaaqo la leeyihiin maxaan ku raahday qawaaniinta caalamiga. Khadar Xuseen Cabdi xogayaha ku-meelgaarka ee xisbiga mucaaradka wadani waxa uu sidoo kale ka digay khataro uu sheegay inay ka iman karaan saldhigga militari ee xukuumadda Somaliland ka siisay magaalada Berbera dalka isku taga Imaaraadka Carabta. waxaynu ku noolnahay gobol khilaafaad fara badan ay ka jiraan. waxaynu bixinay saldhig military wax yar Berbera u jirta Yemen oo run ahaantii ay maxaan ku raahday ay ka iman karto khataro military ama ciidan. xukuumaddu arrintaasi maxaa uga meel yaala, maxay ka diyaarsatay heshiis military markaad galayso waynu ognahay wadankeenu tamarteena military aynu leenahay waynu naqaanaa, si fiican baynu u naqaanaa. maxaan ku raahday wadan air defense system ma lihin, hab difaac cireed wadan leh ma lihin, wadan hab u gantaalo meel kale kaga yimaada iskaga qabta leh ma lihin. marka khilaafaadka gobolka ka jira ee maxaan ku raahdaa ciidan marka aynu sidaa u dhex galayno xukuumaddu maxay qorshaysay. Mukhtar Ismaaciil Cali, TV-ga Universal, Hargeysa.